ku kulansan xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland goboladii waqooyi waxaanay runtii ka hadlayaan arinta muhiimadda leh maanta ee taariikhda madow ka galaysa geedi socodka muxuu ahaay dawladnimadeena Soomaaliya taasoo ah in dhul Soomaaliyeed heshiis lagula saxeexday in muxuu ahaay la siiyo dawlad shisheeye taasoo ah Itoobiya oo dhacday shalay runtii arintaasi sida muxuu ahaay anagoo ku hambalyeynayna golayaasha qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xukuumadda iyo baarlamaankaba iyo ummadda Soomaaliyeedba dareenka wadaninimo ee ay ka muujiyeen arintaasi waxaanu halkan ka cadaynaynaa oo anaguna mar kale ku celinaynaa anagoo ah runtii dadkii ka soo jeeday xildhibaanadii ka soo jeeday goboladaas iyo ku matalayay xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu leenahay arintaasi waa fal dambiyeed weyn weeye waa gardarro cad oo lagula bareeray dhulka Soomaaliyeed waa godob iyo muxuu ahaay